oo habeen ay soo galaysay Isniin. Dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa la kulmaya weeraray ugu badnaa gaar ahaan magaalada Dubai iyo magaalooyin kale. Hadda waxaad moodaa xitaa magaalada Sharjah iyo magaalooyin kale in gantaal lagu garaacayo. Muuqaaladii ugu dambeeyay ee lasoo bandhigay ayaa muujinaya nidaam difaaceedka Imaaraadka Carabta iyo kan Mareykanka ee halkaasi yaallo inay ka hortegayaan diyaarado badan iyo gantaallo dhanka Iiraan ka imaanaya. Imaaraadka saacad ka hor waxay sheegeen in ka badan 500 oo diyaarado drones ah in lagu soo weeraray iyo gantaaladii ugu badnaa. Sidoo kaleeto waxaa lasoo duubay muuqaalo muujinaya dhismayaal ku yaala magaalada Sharjah oo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ah oo ururada cirka isku shareertay sida wakaaladaha wararka ee dalka Ruushka ay baahiyeen. Sidoo kale waxaa la sheegay in gantaalo ay ku dhaceen dekedda Zayd la yiraahdo ama Zayd Port oo ku taalla magaalada Abu Dhabi oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ganacsiga ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Garoonkii diyaaradaha ee Imaaraadka Carabta waa la xiray, kii Dooxa wuu xiran yahay, kii Kuwait kan Bahrain, garoon diyaaradeedka Ben Gurion oo Israa'iil ah, garoomadii Sacuudiga. Arrintan saameyn weyn ay ku yeelatay qaar ka mid ah dowladaha khaliijka oo dhaqaalahoodii hoos u dhac weyn ayaa ku imaanaya. Markaad eegto wararkii ugu dambeeyay sidoo kale oo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ah waxaa la baahiyey in gantaalo lagu garaacay saldhig Faransiiska uu leeyahay oo ku yaala gudaha Isutaga Imaaraadka Carabta. sida wararku ay sheegayaan saldhigan oo xerada nabadda la yiraahdo wuxuu ku yaalaa magaalada Abu Dhabi oo caasimadda Imaaraadka ah. Waxaa la furay sanadkii 2009. Saldhigan haddii aan macluumaad idinka siiyo wuxuu ka kooban yahay 3 qayb: qaybta badda, qaybta cirka iyo qaybta dhulka. Qaybta badda oo kale waxa uu ku yaalaa agagaarka dekedda Port Said la yiraahdo. Waxa qaybtan ay martigelisaa maraakiibta dagaalka ee Faransiiska, waxaana la sheegaa in laga ilaaliyo marinbadeedka khaliijka iyo sidoo kale gacanka Hormuz. qaybta cirka oo kale waxay ku taallaa saldhigga Al Dhafra la yiraahdo, waxaana halkaasi inta badan yaala diyaaradaha dagaalka ee Faransiiska ee Rafale la yiraahdo. Waxaa sidoo kale la geeyaa qaar ka mid ah diyaaradaha dowladaha reer galbeedka, inkasta oo Faransiiska uu badan yahay. Kan dhulkana waa midka tababarka ciidan iyo dhoolatusyada wadajirka Imaaraadka iyo Faransiiska ay qabtaan ee halka lagu qabto. sababta Faransiiska halkaasi uu ugu leeyahayna waa ilaalinta marinka Hormuz, joogitaanka gaashaanbuurta NATO iyo reer galbeedka ee dowladaha khaliijka, la shaqaynta dhanka militariga ee Imaaraadka Carabta, iyo in haddii xaaladdu ay bariga dhexe gaarto ama jawaab degdeg ah loo baahdo in Faransiiska uu halkaasi tallaabo ka qaadayo. Qiyaastii 600 ilaa 700 oo askari oo Faransiis ah ayaa la sheegaa inay si joogto ah halkan u isticmaalaan. Marka la eego dhanka geopolitikana, saldhigan wuxuu Faransiiska kaga dhigan yahay dalka keliya ee reer Yurub saldhig ku leh khaliijka, awoodiisana si toos ah uga howlgeli karayso badda cas, bariga Afrika iyo sidoo kaleeto qaybo ka mid ah goobaha Iiraaniyiintu ay gacanta ku hayaan. Weerarkan wuxuu ku soo beegmayaa marka iyada oo Faransiiska uu saacado ka hor sheegay in xitaa aan lagu wadin in Iiraan weerar lagu qaado, laakiin Ingiriiska si cad ayuu u sheegay in weerarka uu qayb ka yahay dhanka Qubrus ayna u badan tahay ama Giriiga ayna u badan tahay niraahde in Ingiriiska uu weerar markaasi ka geysto. Saacado ka hor xitaa waxaa la baahinayay xogo ku saabsan in Iiraan iyo dhankaasi ee Qubrus ay gantaalo ku garaacayso, inkasta oo aan xogo rasmi ah laga hayn. Marka dowladaha khaliijka aad eegto, Imaaraadka Carabta ayaad moodaa marka khasaaraha ugu badan inuu la kulmayo. Marka la eego duqeymaha oo dhismayaal ku yaala magaalada Dubai iyo magaalada Abu Dhabi ayay inta ugu badan gantaalada ku dhacayaan iyo xarumaha muhiimka ah. Tusaale ahaan, hadda waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in Iiraan ay bartilmaameysatay mid ka mid ah ilihii shidaal ee ugu muhiimsanaa ee Imaaraadka Carabta. Diyaarad ayaa la sheegay in lagu weeraray oo gacanka khaliijka ah, mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee shidaalka. Sidoo kaleeto dekedihii ayaa la bartilmaameysanayaa, dhismayaashii ganacsiga iyo dhaqaalaha badan ay ka sameyn jireen. Sababtu marka waxaa la isweydiinayaa Imaaraadka Carabta weerarka intan la eg oo uu la kulmayo in ka badan kan Israa'iil, inkastoo Israa'iilba in ka badan 1500 oo gantaal la sheegay in lagu weeraray saacadihii lasoo dhaafay. Cumaan oo kale maanta waxaa la weeraray mid ka mid ah dekedihii ganacsiga ee ugu muhiimsanaa, dekedda Duqma la yiraahdo oo Cumaan ku taala. Dekedan waxaa la sheegay inay ka mid tahay goobaha ugu muhiimsan ee dhowaan Mareykanka iyo dowladda Cumaan ay heshiis ku gaareen in agabka logistikada iyo waxyaabaha la midka ah uu ka soo dejisado. Waana mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan sidoo kaleetana cusub ee uu doonayo gobolka inuu ku yeesho dalkaasi Cumaan. haddii aynu eegno hay'adda badaha ee dowladda Ingiriiska waxay shaacisay
in laba markab ay gantaalo la kulmeen ama gantaalo ay ku dhaceen xilli ay marayeen gacanka Hormuz. Magaalada Tehran oo caasimada dalka Iiraanna duqeyntii ugu badneed ayaa galabta lagu garaacay, taasoo ka dhigan in khasaaruhu uu aad u kordhayo, dadka rayidka uu soo gaarayo. Ilaa iminkana Maraykanka wuxuu shaaciyey in 3 ka mid ah askartiisa ay geeriyoodeen, 5 kaleetana dhaawacyo ay soo gaareen, weliba qaarkood dhaawacyadooda ay aad halis u yihiin inta howlgalka lagu guda jiray. Waana qirashadii ugu horeysay Maraykanka uu sameynayo tan iyo dagaalka markii uu bilowday. Dhanka markaan eegno Israel waxaa aad loo hadalhayaa xaafad dhan oo Iiraaniyiintu ay gantaaro ku burburiyeen. Xaafadan oo Beit Shamis la yiraahdo, dhismayaal halkaasi ku yaala ayaa gebi ahaan la burburiyey. Waxa dhismayaasha hoostooda laga soo saarayaa dadka la sheegay inay ku hoos jiraan dhismayaasha. Qaarkood waxaa la sheegay in mar horeba halkaas ay ka baxeen, iyagoo qaatay fariintii digniinta ahayd ee mar horeba ay soo gaarsiiyeen Israa'iiliyiinta. Aqalka cad ee Maraykankana waxa uu shaaciyey in madaxweyne Trump uu si dhow ula socdo howlgallada iyo dagaalka Iiraan lagula jiro ilaa iminka. Warbaahinta Carabta haddii aan usoo laabano waxay baahinayaan in la bartilmaameysaday dhisme ay ku sugnaayeen Israa'iiliyiin. Dhismahaas oo ku yaala magaalada Abu Dhabi oo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, inkasta oo faahfaahin dheeraad ah aan la haynin. Sidoo kale ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ayaa sheegay inay 4 gantaal ay ku weerareen markab dagaal oo lagu magacaabo Abraham Lincoln. Markabkan oo ah mid aad u muhiimsan marka la eego dhanka Maraykanka. 4 gantaalna waxay sheegeen kuwo balaastiig ah inay ahaayeen. Macluumaad lagama hayo ilaa iyo hadda, sawirro iyo muuqaalana lama hayo. Laakiin Iiraaniyiintu waxay dhanka kale soo bandhigeen iyagoo bartilmaameysaday diyaarad dronis ah oo MQ-9 la yiraahdo, oo ka mid ah diyaaradaha drone ee Maraykanka u isticmaalo dhanka sahanka iyo howlgallada. Marka la eego qiimeynta ilaa iyo hadda la sameeyey, toddobaadyo ayaa la sheegay inay qaadanayso dagaalka hadda u dhexeeya Iiraan iyo Maraykanka. Sidoo kaleeto mas'uuliyiinta Maraykanka ayaa laga soo xigtay inay yiraahdeen ma filayno dilka Ayatollah Khamenei kadib in awood kale Iiraaniyiintu ay la soo bixi doonaan. Dhanka kaleetana markii ugu horeysay sida qodobka 111aad uu dhigayo, mas'uuliyiinta Iiraan ayaa shaaca ka dhigay in golaha ku-meel gaarka ah ee dowladda Iiraan ay bilaabeen durbo shaqadaas oo ah in waa shaqadii uu qabanayay micnaha Ayatollah Ali Khamenei oo ku saabsan xaaladda Iiraan iminka ay wajahayso, iyada oo sidoo kaleetana ay bilaabeen shaqada ah qaabka loo soo xulayo ninka bedelayo Ayatollah Ali Khamenei. Cabbaas Araqjina waxa uu u sheegay telefishinka Al Jazeera in bartilmaameedsiga hogaamiyahooda uusan ka dhignayn in Iiraan gebi ahaanba ay daaqada ka bixi doonto, laakiin ay sii dagaalami doonaan. Khaliijka iyo dagaalka ay ku qaadeen ayuu soo hadal qaaday. Ma filayno buu yiri wanaag in qofkan uu inooga imaanayo, laakiin xaq baan u leenahay inaan nafsadeena difaacno, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan. Madaxweynaha dowladda Iiraan warbaahinta ayuu la hadlay, wuxuuna sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah cadowgooda iyo bartilmaameedsiga saldhigyada Maraykanka ee dhanka gobolka. Aan kula wadaago marka Iiraan markii ugu horeysay gantaalka ay adeegsatay. Wakaaladda wararka ee Faris la yiraahdo dalka Iiraan ayaa axadda maanta ka soo xigatay saraakiisha militariga ciidanka dowladda Iiraan in markii ugu horeysay ay adeegsadeen gantaalka Fatih 2. Gantaalkaas oo ah hypersonic, xawaarihiisana uu aad u sarreeyo. Waxaana ay sheegeen in lagu bartilmaameysaday saldhigyada Maraykanka gaar ahaaneed aan la cayimin. Gantaalkan wuxuu leeyahay masaafo aad u sarreyso 1400 oo kiiloomitir ayuu gaari karayaa. Xawaarihiisu wuxuu u dhexeeyaa ama uu ka sarreeyaaba codka 5 ilaa iyo 13 jeer, taasoo u dhigan in ku dhawaad 18,000 oo kiiloomitir uu saacaddii si toosa u jari karayo. Waxayna taasi suuragelinaysaa masaafo u dhexeysa galbeedka dalka Iiraan iyo Israa'iil inuu ku gaaro waqti kooban oo ah 5 daqiiqo oo keliya. Gantaalkan waxa uu sidaa madax gantaal oo burburintiisu ay aad u sarreyso, miisaankiisana uu gaari karayo 450 kilogram. Wuxuu leeyahay awood uu ku jebin karo nidaamyada casriga ah ee difaaca hawada, waa uu ka gudbi karayaa. Weliba gantaalkan waxaa la sheegay mid cajiib ah inuu ugu horeysay ayayna Iiraan adeegsanaysaa tan iyo dagaaladii ugu dambeeyay. Marka laga hadlayo warbixinta wakaaladda wararka ee Faris ay daabacday, khabiirka dhanka militariga ayaa laga soo xigtay inuu sheegay in gantaalkan uu ku dhacay badda meel u dhow jasiiradda Khubrus, isla markaana micnaha uusan ahayn in jasiiradda la beegsaday, balse waxaa la sheegay inay u badan tahay in bartilmaameedka uu ahaa mid ka mid ah saldhigyada Maraykanka ee bariga dalka Suuriya, halkaasina uu u gudbay.